السلام عليكم. wuxuu ku dhashay magaalada Madiina 10 sano ka hor hijrada wuxuuna ka soo jeedaa beesha Bani Najaar ay ka mid ahayd lafaha qabiilka Qasrad ee reer Ansaar kuwaas oo abtiyaal u ahaa waxa nabiga iyo Cabdul Mudallib. Abi waxa la dilay xilliga jaahilnimada hooyadii waa Sulaym waxayna guursatay Abu Dalha oo saxaabi Ansaari ahaa. waxa uu la ahaa Bara bin Malik iyo Abdullah bin Abi Dalha. qofka ka hadlay waa Anas bin Malik. markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u soo hijrooday magaalada Madiina Anas wuxuu jiray 10 sano hooyadii Sulaym ayaa gacanta qabatay oo u geysay nabiga waxayna ku dhahday magaalada Madiina cid aan wax ku soo hadiideen ma jirin aniga wiilkan oo kaliya ayaan awoodaa ee ku adeego. Anas wuxuu la jiray nabiga 10 sano oo qaadim u ahaa wuxuuna kala kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam caamilo wanaagsan weligiis ma garaacin mana canaanan. Anas oo ka sheekeynaya ayaa dhahaya waxa uu adeegay nabiga 10 sano weligii ima dhihin uf iyo maxad u sameeyay iyo maxad u sameeyay. Anas wuxuu ahaa qaadim aamin ah oo ilaaliya sirta nabiga muddo dheer nabiga calayhi salaatu wasalaam u shaqeynayay hooyadii ayaa ku dhahday nabiga kan waa qaadimkaaga yaraa ay u duceeyay rasuulkii Allah uu duceeyay nabiga isagoo leh ilaahayo badi xawlihiisa iyo ilmihiisa cimrigiisa dheeray dambigiisana dhaaf. Anas ducadii nabiga Allah uu aqbalay wuxuuna Allah siiyay ilmo kor u dhaafaya 100 oo isaga dhalay xawlihi Allah ayaa u badiyay timirtiisu waxay miro bixi jirtay sanadkii 2 jeer cimrigiisa Allah ayaa u dheereeyay wuxuuna gaaray 100 sano ka badan saxaabadii kuwii ugu dambeeyay dhinta ayuuna ku jiray kama uusan qayb qaadan Anas dagaaladii Badar iyo wuxuu da'diis oo yareed awgeed laakiin wuxuu kala qayb galay asagoo u adeegaya nabiga duulaakii Qadiq ayuu ka qayb galay markaasuu da'diisu ay 15 sano sidoo kale heshiiskii Xudaybiya ayuu goobjoog ahaa wuxuuna ku jiray dadkii nabiga kula baayactamay geedka hoostiisa. duulaankii Khaybar ayuu xaadiray go'doominta ayuuna qayb ka qaatay duulaankii Mu'ta asna wuu xaadiray sida culimo badan ay dhaheen sidoo kale Xunayn iyo furashada Makka. dhimashada nabiga kadib Abu Bakar ayaa u diray dhulka Bahrayn si uu xoolaha sakada ugu soo ururiyo. Umar ayaa ku dhahay u dir waa wiil aqli leh oo qara ah. Anas wuxuu ka soo laabtay hawshii loo diray Umar oo khilaafada qabtay wuxuuna u gutay xoolihii oo keenay. Anas jihaadka muusan ka harin wuxuuna ka qayb noqday dagaalkii Riddada gaar ahaan dagaalkii Yamaama sidoo kale furashada Ciraaq iyo Faris ayuu goobjoog ahaa dagaalkii Qaasidiyah iyo go'doomintii Tustur ayuu ka qayb qaatay wuxuuna ahaa kan uu ka hayay Hormuz taliyihii Tustur ee loo qabtay Madiina Umar ka hor. dhamaadka furashooyinka kadib Anas wuxuu degay magaalada Basra wuxuuna marka qaar booqasho ugu tagi jiray Dimashq khulafada Umayyiinta. wuxuu soo gaaray Anas waqtigii Xajaaj uu madax ka ahaa Ciraaq wuxuuna kala kulmay dhibaato badan maalin ayuu Xajaaj dhahay haye qabiilka fidnada dhex wareegaya mar cali ayaa la jirtaa marna waxa la jirtaa Ibn Subayr mar kalena Ibn Ash'as wallahi waa ku jirid goonaya sida xabagta oo kale. wuxuu ku yiri Anas yu amiirku haysta Xajaaj ayaa ku dhahay adigan ku haysta dhagaha Allah ku tire. wuxuu yiri Anas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Xajaaj ayaa amar in lagu shaabadeeyo waa midkii uu xuriyay Xajaaj isagoo rabo inuu ku duleeyo arinta. Anas markuu baabka ka sii baxay wuxuu dhahay waxaan xasuustay ilmahayga badan waana u baqay maahane waxaan ku dhihi lahaa hadal uusan mar dambe igu soo dhiiran gadaasheeda. intaa kadib Anas wuxuu waraaq u qoray qaliifkii Umayyiinta ee Cabdul Malik bin Marwan waraaq cabasho ah oo kaga caamanayo Xajaaj. hadaladiis waxaa ka mid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u adeegay 10 sano wallahi haddii Kirishtaanka arki lahaayeen qaabkan ugu shaqeynayay nabiga way karaameen lahaayeen. jawaabta Cabdul Malik waxay ahayd inuu faray inuu Xajaaj joojiyo dhibka uu ku hayo Anas iyo inuu raaligelin siiyo. Xajaaj wuxuu raaligelin ugu tagay Anas isagoo leh adiga kuma aan rabin in waxa rabay dadku inay iyo hoggaansamaan. wuxuu Anas noolaaday cimri dheer ilaa uu nacay nolosha wuxuuna la isku raacay da'diisu inay dhaaftay 100 sano. wuxuu dhihi jiray cimrigaygu wuu dheeraaday ilaa aan ka xishooday ciideeda waxaana u xiisay la kulanka Rabbigay. ilmaha Anas waxay dhaafeen 100 cunug oo isaga dhalay balse duulaankii Jaarif waxa uga dhintay 10 ilaa 8 cunug. Anas wuxuu ahaa saxaabigii ugu dambeeyay ee labada qibladood dukada iyo saxaabigii ugu dambeeyay ee ku dhintay Basra wuxuuna dhintay 93 hijriya. wuxuuna ka dardaarmay Maxamed bin Sirin inuu arimaha doogistiisa tawalliyo balse Ibn Sirin waqtigaas xabsi ayuu ku jiray taliyihii maamulka hayay ayaa loo tagay wuuna aqbalay inuu sii daayo Ibn Sirin ayaana dhaqay oo ku dukaday. Anas waxaa lagu sifeeyaa dadka inuu ugu salaad qorxoonaa safar iyo nagaashaba istaag ayuu aad ugu dheereen jiray ilaa lugihiisa ay ka dilaacaan wuxuuna aad ula yaabi jiray dadka salaadooda. Imaam Suhri oo ka sheekeynaya wuxuu dhahay Anas oo oynaya ayaan arkay oo jooga Dimashq waxaana ku dhahay maxaa ku helay. wuxuu yiri wixii aan soo gaaray waxaan ka aqaanay salaada ayadana waa la dayacay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.